asxaabta soo dhawaada cabitaankan aad u jeedaan aad ayuu u culus yahay maangada wuu ka macaan yahay maanga ma ahan waxaan idin tusayaa geed aan ka sameysanayno aad daawo u ah sidoo kale asxaabta salaatadan aaday waxay ugu fiican tahay dadka gastriga qaba hooyo umula oo rabta inay isnafaqeyso cabitaankan dadka dhiikarka qaba ayuu ku fiican yahay intaasoo dhan hal wax ayaan ka sameynaynaa aan fideogeena gudagalno bismillaah allahuma salli calaa sayidina maxamed asxaabta inta aan soo sheegay waxaan ka sameynaynaa baaquligan mirahan ku jira waa miro daawo ah nafaqo ah waxaan ka sameeyey waxa loo yaqaano bocor ayaan soo jarjaray waa soo dhaqay waa karinee 10 daqiiqo ayaa dabka soo saaray asxaabta biyihiisa xataa daawo waaye saa ogtihiin nabiyullaahi yuunus ibni matta ilaahay ayaa ku irsaaqay geedkan markii uu xuudku soo tufay marka asxaabta geedkan daawo waaye carabiga yaqdiin ayaa la dhahaa waa nafaqo kow maxaa sameynaya asxaabta salaato aad u macaan nafaqa aan ka sameynayna asxaabta fideoga like dhahaya si share gareeya page-ka follow dhahaya waxaa soo guranay weelaa ku guraysa waa soo jijibinay salaatadan aad ay u fiican tahay geedkan maqaarku u fiican yahay caloosha ayuu u fiican yahay waxaa soo qaadanaya yogad hadaa haysatid haye yogad ma haysatid waxaa soo qaadanaya waxa loo yaqaano asxaabta caano garoor ah ku darsanay yogadka aad ugu macaan yahay salaatadan hadaa tahay qof dheyd sameynaya kuma dareysid malab iyo waxba sidiisa ku cuneysaa laakiin hadaa tahay qof gastri qaba aad kuugu fiican yahay waxaa soo qaadanaya malab ayaa ku darsanaysaa asxaabta bocorka caabuqyada uu koosgareeyo gaaska ayuu dhayaa aad ugu wanaagsan yahay dadka gaaska qabasan ugu sameeya tan kale hooyada umusha geedkan nafaqo waaye alaabtan hadaa isku darsatid qof kasta wuu u fiican yahay waa nafaqo aad u macaan yahay xataa ilmihiina siiya intaan hadda salaatadan cajab waaye asxaabta talaagada gashanay ama sideeda iyadoo cuneysaa hadii kale waxaa sameyn kartaa markaa bocorka soo miirtid markaa soo karisid aan ka wadaa biyaha ka shubtid biyihiisa hadaadinin ayaa waxaa ku darsanay malab talaagada gashanay haduu habeenkii ku baryo talaagada macaankiisa mamaleynka dhisaana ku cuneysaa kaale iska arag quraac buu kuu noqon karaa waa nafaqo maqaarkaaga wuu ka muuqanayaa aad ugu fiican yahay maqaarka jirka tinta asxaabta malabka waxaa fiican in geedka fandhaalka la dhaho inaa isticmaashid malgacada ma fiicna cabitaankii koobaad ayaan ka sameysanaynaa cabitaankan tijaabiya asxaabta kulligiin sababtoo ah maangada amase cambaha qaali waaye laakiin geedkan waa raqiis meel kasta waa helaysaa tan kale aad u macaan yahay yoogad ayaa ku daray ani hata hal koob ayaan sameynayaa in yaroo yoogadaan ku daray laakiin adiga waxaa ku darsanay hadaada yoogad haysan caano garoora ku darsanay waxaan waxaa waaye saxaab biyihii bocorka markuu bislaaday biyihiisa aaday u fiican yihiin waa nafaqo waa ku darayaa biyihiisiyaan ku daray bocor yoogadan isku soo daray waa soo shiiday cabitaan maango uma baahnin weliba dadka meheradaha leh saa u sameysta waayo cambaha asaga ayaa ka macaan tijaabiya asxaabta ta kale geedkan waa geed daawa waa nafaqo waa culayska macaanka maba maleyn kartid kana bocora isma dhehaysid soo qaada koobkaaga baraf kusoo shubo cabitaan aad u macaan weliba waqtiga kuleylaha ku haboon haddana nafaqa oo caafimaada oo geed daawa maqaarka u fiican qur-aanka ilaahay ku sheegay oo geedkan yaqdiin ayaa la dhahaa saa ogtihiinba aad u macaan yahay ka faa-iideysta asxaabta qaaliga video like dhahaya sii sheer gareeya page-ka follow dhahaya cabitaan kale ayaa noo soo socda asxaabta maanga kasta ka macaan asxaabta geedkan waa karkadee waa ubaxa dhiig karka dadka qaba u fiican uu dajiyaa qof kastana wuu u fiican yahay waa kugula talinaya inaad shaah ka sameysatid shaah markaa ka sameysanaysid dhowr xabo ayaa weel ku shubeysa biyo karsanaa ku shubee laakiin ani ujeedadeeda waxaa waaye waxaa jira asxaabta qof sonkor iyo dhiigkar qaba marka qofka sokorta iyo dhiigkarka qaba sokorta ma isticmaali karo haddana geedkan dadka dhiigga ayuu ka dejiyaa marka sir baan kuu sheegayaa biyo karkarsana ku shubee waa soo qaboojinaysaa waxaa soo qaadanaya bocorkii aan hadda soo sameynay alla bocorku cajab waaye asxaabta daawo waaye
waxaa sameynaya asxaabta bocorkii ayaa weel ku guraysaa. marka waxaa soo qaadanaysaa geedka loo yaqaano karkadeega oo dhiigga kaa dejinaya. bocorka sokor ayuu u noqonaa. marka bocorku wuu macaan yahay, waa nafaqo. haddana qofka dhiig karka qaba wuuba u fiican yahay iyo sokorta. haddana wuxuu kaloo kusii fiicnaynayaa sokor u noqona. cabitaankii macaan ayuu kaaga dhigaa oo sokor dabiiciya ayuu leeyahay aan wax kaa dhimaynin. asxaabta qaaliga videoga like dhahaya, page-kana follow dhahaya, channelkeena soo booqda, subscribe dhahaya. soo qaado koobkaaga cabitaan khatara nafaqa, laakiin waxaan kugula talinaa cabitaankan isla markiiba cab. baraf baa ku darsanaysaa. cabitaan khatar oo aada u macaan oo haddana easy ah, nafaqo ah ayaa haysataa. dhiigga karsan kaa dejinaya. runtii asxaabta bocorku waa nafaqo, ka faa'iideysta. lacag ma joogo, meel kasta wuu yaalaa. salaatadan haddaa baratidna weligaa ma badaynaysid. asxaabta qaaliga videoga like dhahaya, page-ka follow dhahaya, commenti ka buuxiya, siina share gareeya videoga si qeyrka uga faa'iido. intaa ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. intaan video kale ku kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.